بسم الله maanta taariikhdu tahay shantii bishii 12aad 2024 magacaygu waxa weeye Kabtan Cabdixakiin Xasan Carte oo loo yaqaan Djibouti waa taliyaha saldhigga aaga waqooyi ilaa Goobeyn iyo aagaas in muddo 12 sano ah ciidanka dawladda Jubbaland gaar ahaan ciidanka booliiska waxaan marka intaas oo dhan igu soo tabacday oo intaas oo dhan juhdi iyo dhaqaale iyo tababarba igu bixinayay dawladda Jubbaland sida si lamida waxaan in badan ka soo shaqeeyay saldhigyada kala duwan ee area-da degmada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose ilaa iyo haddana aan ku dhex jiraa oo aan ka shaqeeyaa intaas oo shaqo anagoo soo qabanay muddooyinkan dambe waxaa xiriir ila soo sameynayay gudoomiyihii hore oo degmada Badhaadhe Maxamed Fanax ninkaas oo degmadii uu xukumay ee lagu ogaa ay dawladdu u xil saartay khalkhal amni ku abuuray ciidamo aan loo baahnayn oo fawdo ka dajiyay baa wuxuu anigana xiriir ila soo sameeyay aaga aan xukumo in aan sameeyo ilaa magaalada gudaheeda inaan afgembi aan ka sameeyo taasoo aan ii qalmaynin marnaba aanan aqbalaynin yeelinahaynin isaga oo adeegsanaya dhaqaalihii uu soo diray taliska booliiska aan ku wareejinay taliskuna wuxuu ku wareejinayaa wasaaradda maaliyadda lacagta kow markii hore waxaa la soo diray $70,000 waxaa ku xigtay 15,000 waxaa ku xigtay $5,000 waxaan anagu haynaa waa ituso itaabsi waxaanu been ka sheegayna ma aan rabnaa marka aan rabnaa inaan u sheegno baaq aan u dirno ama aanu wacyi gelino dadka saraakiisha dhiganaga ee nala midka ah ee la wacayo ama la rabo in khalad laga dhaadhiciyo ma suurtoobayso mana soconayso arintaas anagu Jubbaland baan nahay waxaan nahay dawlad kaabayaasheeda dhaqaalaha iyo dastuurkeeda wadata annagu dad baahan oo sakaraada ma nihin qadiyada wax walba ka muhiimsan intaas oo sanaan u soo dagaalameynay iyo in ka badan oo ka sii horeysay awiyaalkana u soo dagaalamay waxaan u baahanahay marka qadiyadanada ma siisanayno shilin haddii aan marka saraakiisha waxaan rabaa inaan u sheego hadday iga sareeyaan iyo hadday iga hooseeyaanba arintaas iyada ah inooma cuntanto wax soconayana ma aha wax inoo wanaagsanna ma aha sharafteenana ma aha arinta laga digtoonaado arinta ayaan la isku halayn haduu Ilaahay yiraahdo dawladda Jubbaland way mahadsan tahay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa wax Ilaahay abuurtay oo aanu isku bedelanayno oo siisanaynaana ma jirto wabillahi tawfiiq waxaan rabaa inaan kaan fariin uga diro dhammaan ciidamada geesiyaasha ah ee furimaha ku jira ee dawladda Jubbaland ciidanku xuquuqdiisu way dhameystiran tahay xuquuq buu leeyahay xeer buu leeyahay sharci buu leeyahay haddii Allah uu dalo ogolaado propaganda iyo waxyaabaha ciidanka lagu furaya ee la leeyahay maalin walba saraakiisha lala hadlayo waxaan leeyahay in laga waantoobo ciidankan waqti badan ayuu dalkan u soo halgamay rag badan baa u soo dhintay rag badan baa u dhaawacmay iyo haweenba dadka iyaga geesiyaasha ee halyeeyada ee taariikhda dalkan ku leh ee soo dhabar adeegay meel kasta ay joogan runtii ma aha kuwa qadiyadooda maanta wax ku iibsanaya ma aha waxaan leeyahay dawladda dhexe siyaasadda iyo ha kala saarto amniga khalkhal bay geliyeen wax saxana ma aha wax la aqbali karana ma aha nimanka madaxda ee waaweyn ee maanta ku andacoonaya ee dhahaya darajaan bixinayna ciidankan xuquuq siinayna war xuquuqda ciidanka aad siinaysaan hadda jaziira ciidanka ku jiray ee difaaca ku jiray ee magaalada shabaab ka difaacaya waa ka soo saarteen waxaa geyseen diyaaradaha Raskamboni ku geyseen oo xamar yaa difaacaya Raskamboni waa go'doon ciidan Soomaaliyeed baa joogay ciidanka dawladda Jubbaland baa joogay maxay ahaydey 13 sano ayaa ka hor ayaa la qabtay magaalada Raskamboni 2011 bish 7 yaa laga qabtay shabaab ilaa waqtigaas ay dawladda Jubbaland gacanteeda ku jirtay yaa laga qabanayaa dalka aniga oo sarkaal xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan ayaa Raskamboni jooga
aniga ayaa mas-uul ka ah cidda la isu dhiibaya waayo cidda laga cararaya waayo waxaan is leeyahay dadka yaa lamarahan habaabinin sarkaalka hadda meesha la geeyey maxay ahayday laga dhigay saraakiisha maanta militariga hogaaminaysa oo xasan ciraaqi ka mid yahay xasan ciraaqi darajada uu watay yaa siiyey xasan ciraaqi kulliyadee ka soo baxay halkaanuu ka soo baxay dafcadda halkaanuu tababar kaga baxay halkan isagoo majir ayuu halkan ka tegay oo dowladda federaalka Soomaaliya liiskiisa loo gudbiyey anaa ugu geeyay madaxweynaha maxay ahayd meesha la yiraahdo guriga badda warqadiisa lagu saxiixay isagoo sarkaal xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu xamar tegay kadib uu sidaas ku soo hawlgalay maanta waxa loo soo diray dalkiisa inuu dumiyo Khalid waayo Khalid xagee kulliyad Soomaaliyeed kaga baxay kulliyadu ka baxay Jubbaland bay madaxweynaha dowladda Jubbaland baa siiyay darajada uu wato isaga ayaa u qoray warqadda integrationkii buu ku galay kulli saraakiisha halkan ka tagtay hebel iyo hebel iyo hebel sidaas ay wada ahaayeen 180 sarkaal ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda loo gudbiyay faylkiisa oo maxay ahayd ciidankii integration ku galay 3500 oo askari ayaan ku xareynay halkan dafcaddii ugu horeysay oo ciidamo Soomaaliyeed oo isku dhaf ah oo la xareeyay ay Jubbaland ahayd guutada 11aad ee halka ku xareysan maanta 400 oo qof kama joogto guutada iyada ahayd saraakiisha ku dhaawacantay ee dagaalka inta ku jirtay ee Baarsunguuni inta soo sana difaaca kaga jirtay maxaa loo dalacsiin waayay oo ra'iisul wasaare dalcaada maanta aad leedahay buule xaaji ciidanka jooga difaaca ka soo baxo ma siisid curdan 7 jeer buu ku dhaawacmay maxay ahayd Baarsunguuni ku dhaawacmay isagoo jajaban ayuu halkan inta soo sana taliyo urur ahaa ayuu magaalada jooga oo walina sarkaal xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsan dablo mushaarka ku qaata xuquuqda ma siisid ciidanka qabyaalada laga daayo walaalayaal ciidanka fadeexada laga daayo sumcad xumada laga daayo sharaf xumada laga daayo raas Kamboni ciidan dowladda Jubbaland ay leedahay oo ciidan Soomaaliyeed oo aniga sarkaal xoogga dalka Soomaaliyeed aan mas'uul ka ahay ayaa jooga kaasa ku sugan cadow ma joogo col ma joogo maxay ahayd cadowga colka shabaab weeye meesha haystaana waa garanaysaan hadii darajo la bixinayo darajada ragga mudan ee u baahan in la siiyo hala siiyo ragga soo dhintay ee dhaawacmay ee dalkan u soo halgamay ee darajada mudan hala siiyo ha laga daayo qofkii wax qaldi kara ee wax haleyn kara in darajo la siiyo ma mudna waxa mudan in darajo la siiyo ninka sarkaalka ah ee difaaca ku jira ee wadaniga ah ee dalka u soo halgamay ee aabihii soo halgamay ee awowgii soo halgamay ee taariikhda wanaagsan leh kaasa mudan in la boonbooniyo ma mudna midka saaqidka ah oo isagoo taliye ah oo mas'uul ah madaxdiisii inuu afgambiye ninka ku talagalay kaasi ma mudna in la dalacsiiyo ninka maanta waxa ka shaqeynaya ee darajada la siiyayna barina adigu ku dili doona mudana madaxweyne arinta ka fiirso ra'iisul wasaare adiguna arinta ka fiirso dhammaan ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogan ee Jubbaland joogo nabad baan ugu baaqaya wiilasha raas Kamboni la keenay waxaan leeyahay walaalayaal cadow idin ka soo horeeya ciidamada Jubbaland cadow ma aha walaaladin weeye aniguna duulaan idin kuma soo yihi laakiin hadii basar xumada la deen waayo saacadaan u qabanaya garoonka raas Kamboni diyaarad dambe oo ka soo degi kartaa male mandate baa ladin siiyay waqtigii madaxweynaha uu qabtay baan la sugeynaa xabada aan shabaab ugu talagalay ma doonayo inay wiilal Soomaaliyeed ku dhacdo taana saasana iyadana xaqiiqdeeda aan u sheegaynaa waxaan leenahay ciidanka Jubbaland meel ay kastay joogan geesiyaasha waa dhabar adeegteen sharaf baad leedihiin kuwa gada jooga iyo kuwa Jubbada hoose jooga meel kastoo joogtaanba sharaf baad leedihiin dalkiina ilaashada difaaciina ilaashada darajadiina iyo xuquuqdiina iyo maxay ahayd mishaarka ay bixiyaan dawladda federaalka midka ka badan oo qaadanaysan insha Allah taala xuquuqdiina oo dhameystiran buugaan ay ku qoran tahay